السلام عليكم أصحابتي دقاليقة واسمع ليس بروجرام oo idileh maalin wanaagsan. Waxaan filayaa inay marar badan kugu dhacday in xog ka dhunto. Xogtaas waxay iskugu jirtaa sawiro, fiidiyoyaal iyo sidoo kale dukumeentiyo. Xogtaas waxay ku dhumi kartaa in mobilka laga xado ama inuu mobilka ka lumo ama inuu mobilka ka ciloobo. Intaas ayay ku lumi kartaa xogtaada. Haddaba aan ku weydiiyay ma ku fikirtay xal ah sidee baan xogtayga u ilaashan karaa ama sidee baan xogtayda ku heli karaa haddii wax walba ay dhacaan. Haddaba video waxaan kugu tusi doonaa farsamo yar oo fudud taas oo kuu sahlaysa in xogtaada aad keedsato weliba aad markasta heli karto. Keedkaani cidna kulama wadaagi karto, adiga kaliya ayaa xor u ah. Waxaan ku sii doonaa farsamo yar oo fudud taas oo kuu sahlaysa in xogtaada aad si fudud ku keedsato. waxa aad kaydsanayso waa sawiro, fiidiyoyaal iyo sidoo kale dukumeentiyo. Intaba waad keedsanaysaa. Sidoo kale farsamadan uma gooni aha mobilada oo kaliya, kombiyuutarada iyagana waad ku sameyn kartaa. Waxaan adeegsan doonaa oo kaliya waa technology. Farsamadan way fududahay. Waan filayaa inaad ku faraxsan tahay inaad hesho xog aad keydisay 3 sano ka hor, maantana aad aragto xogtii oo ku dhameystiran. Videowan ayaan kugu tusi doonaa, si daawo ayaan ku leeyahay. Mahadsanid. furaha koowaad ee aan isticmaali doono waa Gmail. halka aan wax dhiga doono ama qolka aan wax u dhiibi doonana waa Google. si fudud si aan kugu fahansiiyo, daawo ayaan ku leeyahay farsamada oo dhameystiran. Hagaag si toos ayaan farsamada kugu tusi doonaa, balse waxaan kuu sheegayaa qolka ay xogteena geli doonto intaan ku tusin farsamada. Qolka ay xogteena geli doonto waa Drive. barnaamijkan ay si toos u dhex geli doontaa xogteena, asiga ayaana noo xafidi doono inta aan doono. waxaana iskale shirkadda Google. haddii uusan ku jirin mobilkaaga, kaliya tag App Store, Play Store mobilkaaga, kadibna kala soo deg Google Drive. waa kana soo degso. aniga hore ayuu ugu soo degsanaay, xog badan ayaa inagu jirto. si fudud waxaan kaaga bilaabi doonaa qaybta sawirada. waxaan tegi doonaa mid ka mid ah sawiradeeda aan rabo inaan ku baraatikeeyo. sawirkaani wuxuu ku jiraa mobilkayga. waxaan rabaa inaan ku keedsado Google Drive-ka oo hadhowbeyti dib aan u helo. si aan u keedsado waxaan taabanayaa calaamadan hoose ee loo yaqaan share. calaamadaas loo yaqaan share, markii aad calaamadaas ku dhufato waxa ku soo baxaya liiskan hoose. liiskan hoose markay ku soo baxdo, qaybtaani waa tan waxa ku qoran save to drive. ku save gareyso drive-ka. markii aad haddii uu Gmail kugu xiran yahay, Gmail-kaaga ayuu soo qaban doonaa. haddii mobilkaaga ku xiran yahay dhowr 10 Gmail oo kale, halkan fur kadibna arag Gmail-ka. kaliya ani halkan Gmail ayuu ii soo saarayaa, sababtoo ah halkan Gmail ayaa mobilkayga ku xiran. qaybtan korane sawirka magac u baxso. halkan hoose folder ahna folderka lagu dhigayo sawirkan dooro. tusaale waan ku dhufanayaa. haddii aan rabin folderkan dib uga bax, kadibna qaybtan new ka dooro ama plus ay ku qoran tahay. qaybtaani waxaa ku samaysanaysaa folder cusub. tusaale waxaa u baxanayaa sawirkii hadda, kadibna create ayaan taabanayaa, kadibna select ayaan dhahayaa, kadibna waxaan leeyahay save. haatan si toos wuxuu dhex yaalaa sawirkayga drive-ka. sidoo kale haddii aad u baahan tahay documenti, hadda waxaa inoo soo baxay lambar 1. lambar 1 waxay la mid tahay in Google Drive-keena ah hal shay ku soo kordhinay. hagaag sidaas si la mid ah, haddii aad doonayso inaad documenti ama document waag ku keedsato, tag halka ay kugu jiraan documentieskaaga. aniga halkan waxa u jeedaan documentiyo badan ayaa ugu jiro. tusaale qaybtan ayaan ka dooranayaa, kan ayaan ka sii dooranayaa. select sa documentiga, kadibna taabo calaamada hoose ee share. markuu boxkan hoos kuu soo baxo, kor u qaad, kadibna waxaad ku dhuftaa qaybta ay ku qoran tahay save. markii ay ku soo baxdo, haatan waxa ii soo baxay sawirkii hadda. waan folder aniga aanan sameeyay. folderkani ma rabo, sababtu waxay tahay ma u baahni oo hadda ma dhigay wax sawir ah. waxaan ka raadinayaa qaybta boxka, kadibna select ayaan dhahayaa, kadibna save ayaan dhahayaa oo si toos ah
buugga waxaa laigu geliyey Google Drive-ka. Haddii aad isticmaalayso daato, waxaa laga yaabaa in si toos ah aadan u arkin drive-ka waxa aad dhex dhigtay. Marka internet weyn aad ku xigto sida Wi-Fi oo kale, waad arki kartaa Google Drive-kaaga wixii aad dhigtay. Uploading-kana si toos ayuu dhameysan karaa. Xogtaas sidaas ayaa u dhex dhigi kartaa Google Drive-kaaga. Waa hab yar oo fudud oo ku badbaadsan karto xogtaada, adigoo heli kara xilli kasta iyo mar kasta. Mobile kasta oo aad ka soo gasho ayaad ka heli kartaa. Waa Ismaaciilis Program. Waan filayaa inaad ka hesheen farsamadani. Fadlan haddii ay jirto asxaab badan oo xogta ay ka luntay, halka hoose faalada ugu yeer. Una sheeg inay farsamadani ka caawin doonto. Haddii aad ka mid tahay asxaabta Ismaaciilis Program, waxaa kula ila wadaag fiidiyowan asxaabtaada. Haddii aad ka mid ahayna, waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Ismaaciilis Program. Waa barnaamij oo keliya aan isku idaarsano farsamooyinka tiknoolajiyadda. Waan filayaa inaad ku raaxaysato fiidiyowga. Waxay noo balama fiidiyowan iyo kan xiga. Guuleyso.